golaha guurtida Somaliland ayaa iska difaacay dhaliilo uga yimid madaxweynaha Somaliland kuwaas oo ku saabsanaa in ay muddo dhaaf yihiin xildhibaan Cawil Daawil Cismaan oo ka tirsan golahaasi ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin dhaliilahaasi. Xildhibaanka oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa dhinaca kale ku eedeeyay xukuumadda uu hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in aanay waxba ka qabanin ballamihii badnaa ee ay gashay waqtigii ay ku jirtay ololaha doorashada madaxtinimada, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa golaha guursa xarsi golayaasha faraha ka qaad golayaasha dastada doorasho qabato wad kala dareerayso ha isku dirin golayaasha siyaasad qabo loo baahay doorashada qabo iyaga iska tagay dawladda hoose keen golaha ku sharci gareeyay qabo doorashada ki soo noqonaya soo noqon ki tagay hatu laakiin golaha doorasho bedeli kara golaha wakiilada qabo doorashada annaga sameeyna xeerka wayno yaal xeerka sameeyna annaga reerkooda keen kar waayo reerkooda inuu la herbukiyo ninka reerkooda ma rabno halkan ka baxay haddii reerkaaga kuma rabo maxaad furaysaa kursiga adigu wadhaga baad tahay reerka ka masuul tahay